maalmahan waxaa maqlaysaa waxan badan oo xisbiga ka socday mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani wuxuu ku dacwooday sharcigii baa la jebiyey raaci mayna go-aanka baarlamaanka soo baxay dartii baa sharcigaa laga dooday madaxweynaha marorsaday gartaa ma ogolin waa caadi qofku hadduu wax tago inuu sheegto laba qodob bay sheegteen mid waxay dhaheen komishanka cusbada doorto la shaqayn mayno waayo madaxweynuhu wuxuu jebiyey heshiiska xisbiyada xalaal iftiin baa la qashaa xisbiyada waa heshiiyey haddii qodobka ugu dooda waxay dhahdeen waxay xisbiyadu ku heshiiyeen inaan xubnihii hore ee komishanka lagu soo celin kuwa damba laga dhigay haddii qodobkaasoo qoraala ay hayaan oo lagu heshiiyey anugu mana saxeeyo qodobkaa mana ogi kuwan inaan heshiinin oo ma jiraan leeyahay hadday hayaan ummadda hoos soo barigeen inaanu qodobkaa ku heshiiyen annaga khayr garanay haddaanu jirin oo aan laga heshiinin dee waxa wanaagsan ummadda markaa doonaysa wax kunoo sheeg qodobkaa laguma heshiiyey waxaa lagu heshiiyey in la soo doorto xubnada cusub sababta loogu dari waayey kuwii hore yaan lagu soo celinaa waa sharci aanaan dhaaf karin haddaanu xisbiyada nahay ayaa yaalla xeerka komishanka qodobkiisa 12aad faqradda 4aad waxay leedahay muddada komishanku waa 5 sannadood waana loo cusboonaysiin karaa marka waqtigu ka dhammaado xubnaha haddii loo baahdo yaa saxeexay waxaa saxeexay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi guddoomiyaha xisbiga qaranka wadani guddoomiyaheennii hore oo baarlamaanka oo haddana ah xubin ka tirsan guddida guurtida waa ixtiraamayna saxiixiisa waa la raacaya isagaa saxeexay mudane guddoomiye cabdiraxmaan ummadda u soo bandhig labadaa qodob hadday wax ka jiraan wax ka soo celi ee turxaan la'aan waayo xalaal iftiin baa la qashaa in dadka la jahwareeriye maha qodobka waa baxay qodobka labaad waxa uu yidhi xubintaa annagaa diidda haddaanu dari nahay lagu dari maayo ama xubnaha haddii lagu darana doorasho geli mayno waxaa daba socotoo lagu eedeeyey madaxweynuhu talo uu mararsadaa waa kaliitalis tala ma ogola bal amuurta ilaahay haddana waa qodob isu keenay sharcigii uu isagu saxeexay komishanka qodobka 12aad waxay ahayd laba waxaa soo jeedinaya guurtida mid waxaa soo jeedinaya xisbiga wadani midna wacid saddexana madaxweynaha cid waliba way soo qortay kuweygii midna arrintiisku waa faragelin xisbiga wadani ku keenay waan gudbiyey wacid ku keenay waan gudbiyey guurta labadiina waan gudbiyey saddexdii aniga iga noqotana waan ku daray waxaa jira shuruudo lagu qiyaaso haddaan qaldamo anugu oona ma u bareero anoo dantay riixinaya ama binaadaan qaldama waxa iga dambeeya laba isbaaro guddida hoose baarlamaanka iyo goloweynaha baarlamaanka oo 280 qof waa la gudbiyey intiiba waa mareen waa doodeen wadani inay arrintaasi qalad tahay guddidii baarlamaanka way sii daysay baarlamaankiina wuu celiyey yeeri maynu wadani yidhi diktaatoridda ka weyn baarlamaanka yeeri maayo xaggee lagu arkay dee cabdiraxmaan ka filayay inuu wanaagsan oo shibir ahay qolo jawaadiya wataa laga filayay mudane cabdiraxmaan adoo guddoomiyihii baarlamaanka ugu weynaa saxeexaya ee dalka 10 sano sharciga u saxeexayay adoo guddoomiyaha xisbiga wadaniga qaran ah adoo xildhibaan guurta xubin sharafeed oo milkiye maamus ku leh dee bal arrintaa ka fiirsan yeeri maayo baarlamaanku waa arrin adag war baradina ka garan qashicib weynu anagu baarlamaanku wuxuu waa ogola hadduu kaaga soo celiyo waa ogola labada qodob gartaa ayaan cadeynayay oo midii hadda ka cadeynayay wixii ka soo noqdana waynu arki doonaa waxaan leeyahay aynu shuruuciisa u raacano aynu isku ixtiraamno markaynu doodayno cayda nin waru yahay iyo da' waru yahayba in laga sii daayo midiyaha dhaqan gooniya maaha dhaqankeenna muu ahayn dhaqan la daawado lagu farxa maaha in la iscaawdo wax badan baynu isu nahay haddaynu ku dayno gaalada dimuqraadiyadda maraykanka haddaynu raacnayo waxa la midkaa iyo ingiriiska yiri dee waa ku jabayna dee iyagu dimuqraadiyadu waxay gaadhay inay taa laba nin hays guursadeen haddaynu tooda ku dayno halkaasay nala gelaysaa bal haddaa loo fiirsado waa dimuqraadiya waxaa doonaan samaynayaa war bal ha loo fiirsado dadka raacaya dhalinyarada weliba